بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود ريال أما دقيسيال مركزتو عالم كجوكتان هالكنوا تلفزيون كعالمي كلسن تي في حرمتي سمجارده هلسنكي وحنا برنامج كان يدرس عسين يعني جو محمد بشير ومحمد وحنا المدي شلي ودن كفيلا كفر مي عيارو مركز عياريان دليرada Soomaaliyeed ee wadamada qaaradda Yurub ciyaartaas oo bilaabatay 30 bisha Tobnaad sanada 2015 waxaana ay dhamaanaysaa isla 31 bisha Tobnaad sanada 2015 waxaana soo qaban qaabiyay ururka Sombet oo uu gudoomiyaha ka yahay Aways Ahmed hadaba wax garad iyo waliba aqoon-yahano Soomaaliyeed oo kala duwan ayaa iyagu waxa ay ka dhibanayaan fikirkooda sida ay markaasi ugu faraxsan yihiin isdhexgalka bulshada dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadamada qaaradda Yurub waxaana warbixintoodii kamid ahaa sidatan بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرت شرفتا iyo dadkii ka soo qayb galay iyo mas'uuliyiinta waxaan leeyahay ku soo dhawaada Somali Junior Cup 2015 oo qaban qaabinayo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanka Finland Sombet Aru oo ay nala joogaan ururo badan oo ka shaqeeya isboortiga wadankan muhiimadda waxay tahay loo sameeyay in dhalinyarada Soomaaliyeed ee da'da yar inta badan ah in waqti badan la siiyo sidaas daraadeed waxa kale oo dibadda nooga yimid oo ilaa waqtiga hadda xaadirka nala joogo muxuu oo ka yimid wadanka Sweden mas'uulkii kale ee ka socday wadanka Norway anagoo ka cudur daaranayna inuu baxay laakiin insha Allah taala waa wareysiyada dambaan isku heli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo kulli waa u jeedaan ciyaarihii way socdaan waana ciyaaro mataqaan aan ugu talagalnay dhalinyaradaas oo dhici doona sanad kasto sanadka hadda nagu soo socda hadduu Ilaahay bisha saddexaad bisha labaad dhamaadkeedana Sweden lagu qaban doono hadduu Ilaahay waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad ku soo dhawaada ciyaarihii sida ay noogu socdaan waa u jeedin oo hadda ay ku dhow yihiin xilli gabagaba ah waana mahadsantiin dadkii na aqbalay عزومادا أو في ذني وقت جود قالي كان قليي وما تنتهين كل سود ولا عياري. بسم الله الرحمن الرحيم وحسلامة دلنت سبورت فيلان أضياشة وحجرتك لما وسلامين ما شاء الله ما أنت وحاول نمت إن حرق دقنا ما أنت عم بسكو كأنه دلني يرر أو مقعودي هاي جونيور كقرب جوكت الصوماليات هادو إلى هذا جونيور كاس أيام وحرمنا إن كسر صارنا دلني في عنهم مقع صوماليا مثل الدون هادو اللي هذا فكرة داس وح اسكو دينا عني قدومية أويس أحمد ما شاء الله ومركي يقول رئيسي وعام بلاونه إن شاء الله تنقيت إن كبدنا إن شاء الله وعن ودي دونا سنتك أنتو خدعي سنتك الدمبو سنتك سيح يجابو أوواي كلالك إن شاء الله دل يردنا أسكو كأنه أيان جعل سنة وحكسو صارنا ما شاء الله وسلامين أودياشي وحفلتنا قصو قبش السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله إنه أنت أيام مهد له مهد داس كدب وحنو مهد علنا كوحدة نفسه صنبت قبل قابسي عيارها دليرada معناها قاصة كقبل قابسي هلسنكي أما مقالة فنلندا ودك فنلندا مقالة هلسنكي وحان لي runtii wax loo baahan yahay way talaabo hore loo qaado way waxaan kala soo dhaweynaa walaalkii Macow oo nooga yimid Sweden asagana sidoo kale ka soo qayb qaatay waxaan rajaynayaa insha Allah taala in ay noqoto tii maanta lagu daysado oo isboortiga Soomaaliyeed laga helo waxyaalo badan dhalinyaradu waa mustaqbalkii si mustaqbalka bari looga faa'iido qaranka Soomaaliyeed waxaan leeyahay insha Allah taala wada dadaalka ay wadaan guddiga isboortiga ee Finland Sweden sidoo kale qaaradda Yurub dalkii waa idin baahan yahay hal taakuleeyo wabillahi tawfiiq marka hore magacaygu waa Cabduqaadir Cali Siyaad Cabduqaadir Boos aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in markii ugu horeysay dalkan Finland aan ka soo qayb galo kulan noocan oo kala ah oo dhalinta reer Yurub ay halkan ku madalsan yihiin aynu dhan yihiin waxaan u mahad celinayaa dadka qiimaha ay qadarinta mudan ee halkan ama guddigii waqtigood u horay in kulankan uu dhaco qaasatan saaxiibkeen Macow iyo tiimkiisa oo marti noogu halkan kana imaaday dalkan dariska aan nahay ee Sweden soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay kulan noocan oo kala ah wuxuuna tusaale fiican u yahay in dhalinta Afrika joogta xitaa ay sidaan oo kale isku balansan karaan maadaama qurbaha aan u badannay waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo mar kalena waxaan rajaynayaa insha Allah sanadkan mid ka xiga in si saami uu ku dhaco anna aan qayb ka noqdo hadduu eebisama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترى وحيان
wixii aan dhihi lahaa hore dhammaan dadkii iga soo horreeyay walaalihii ayaa dhahay runtii waa fiican tahay meeshaan sida u jeedno meeshaan dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba 70 dadka qurbaha jooga waa dhalinyaro isdhexgalkooda mar walba in laga shaqeeyo ururadii arrimaha isku soo kaashaday sameeyeen inay isdhexgalaan dhalinyarada aad iyo aad ay ugu fiican tahay in mar walba la xoojiyo maadaama sanadkii mar la dhahay in laga dhigo 2 mar sanadkii kulli sidii ku suurtoobayso insha Allah marka aad iyo aad u mahadsantiin insha halka waxaan baleenayaa qabanqaabiyaasha ururka Sambad aniga oo qabalsan qaybta dhalinyarada waxaan kale oo aan baleenayaa martida sharafta la nagala soo qayb gashay sida Macu oo noogi min Qatar Holland Sweden iyo urur badan sida mataqaana FC Soomaaliya Soccer iyo wariyaal ay kamid yihiin Maxamed Serar oo u shaqeeya idaacadda Universal marka insha Allah sanadkan sanad ku xigo waxaan ku talagalnaa inaan ciyaaraha balaarino si dhalinyarada sportiga under 17 ka under 18 ka jaanis badan loo siiyo si ay ugu dheelaan qaranka Soomaaliya marka anagii waxa ka kaashanay macallin Macu oo nooga mid Sweden iyo anagoo Finland matalayno iyo kooxo badan oo Norway iyo Sweden insha Allah inkastoo ay sanadkan iska soo qayb galin Norway iyo ma taqaanaa Denmark iyo Ingiriiska insha Allah waxaan rajaynaynaa sanad dambe inay nagala soo qayb galaan dadka reer Finland waxay u taageen sida dadka mulaalooda oo martida inay u soo dhaweey lahaayeen inay garab taageen inay ma taqaanaa dadka wax ka soo dhaweeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in barnaamijkan aan ka soo qayb galnay iyadoo ay dhalinyaro fara badan ama koobkan loogu talagalay dhalinyarada uu yahay markii ugu horeeyay oo dalkan Finland laga abaabulo ayna soo qaban qaabiyeen ururka Sambad oo isagu markaasi ah urur ka mid ah sportiga dalkan Finland run ahaantiina jawi wanaagsan ayuu ku bilowday marti sharafta oo gudoomiye Macu oo inooga yimid dalka Sweden gaar ahaan Qatar Holland aad baan u soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay maadaama aan ka tirsanahay ururka midnimada Soomaaliyeedna waxaan leenahay soo dhawaada dhamaanba sportiga iyo martidooda بدل عول بين حول